السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyadoo timirtu dhammaanteedba ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad haddana timirta la yidhaahdo cajwa waa timir ka duwan noocyada kale ee timirta waana timir barakaysan waana timir ka baxda magaalada barakaysan ee Madiina waana timirta nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxtarkeeda waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka markuu waagu baryo cuna 7 xabbo oo ka mid ah timirta cajwada maalintaas oo dhan sun iyo sixirtoona waxba ma yeelaan xataa haddii la isku dayo in la sixiro sixirkaasi waxba ka qaadi maayo qofkii subaxdii markuu waagu baryay cunay 7 xabbo oo ka mid ah timirta cajwada haddaba intaas oo kaliya kuma koobna waxtarka timirtan ay u leedahay jidhka waana timir ay ka buuxaan faytamiino borotiino karbohaydrayt iyo macaadin badan waxay u fiican tahay nadiifinta caloosha iyadoo caloosha dawo uga ah bakteeriyada iyo cayayaanka kale ee ku dhasha caloosha waxaanay sidoo kale dawo u tahay xanuunada ku dhaca beerka waxay sidoo kale dawo ka tahay xanuunka shubanka waxaanay sidoo kale hoos u dhigtaa khatarta xanuunka kolestaroolka waxaanay dawo u tahay caafimaad qabka ilkaha waxay sidoo kale timirtani dawo ka tahay xanuunada gaastariga iyo bawaasiirta waxa kaloo timirtan lagu daweeyaa dhiig yaraanta iyadoo timirtan ay ka buuxda maadada xadiidku iyo sidoo kale vitamin B2 waxaanay sidoo kale timirtani dawo ka tahay infekshanka ku dhaca maqaarka sare ee jidhka waxay sidoo kale timirtani wanaajisaa dheefshiidka iyo habsami u shaqayntiisa isla dhinaca kalena midhaha geedka shamar waxay isku koox yihiin dhirta kale ee yansun iyo shibti asal ahaanna waxaa laga isticmaali jiray wadamada Hindiya iyo Talyaaniga waxaanay soo hoos galayaan dhirta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inagula dardaarmay isticmaalkooda ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi calaykum bisana wa sanuut haddaba aynu soo qaadana 7 faa'iido oo ay jidhkeenna u leeyihiin isticmaalka midhaha shamar waxaanay kala yihiin kow waxay u fiican yihiin caafimaad qabka lafaha waxaana ku jira maadooyin badan oo lafaha ka dhiga kuwa caafimaad qaba kana ilaaliya dhibaatooyinka soo wajaha lafaha laba waxay ilaa xad hoos u dhigaan kacsanaanta dhiigkarka waxaana ka buuxa midhahan oo ku jira maadooyinka calcium potassium iyo magnesium saddex waxay wanaajiyaan caafimaad qabka wadnaha waxaana ku jira midhahan faytamiino badan oo u fiican caafimaad qabka wadnaha afar waxa ku jira midhaha geedkan maadooyin badan oo jidhka ka dhiga mid iska difaaca kansarka waxaanay beerka ka dhigaan mid iska saaraya sunta shan waxay xoojiyaan difaaca jidhka waxaanay ka shaqaysiiyaan dhammaan marinada dhiigga ee jidhka oo dhan lix waxay jidhka ka caawiyaan inuu iska difaaca noocyada kala duwan ee inflammationka waxaanay jidhka ka caawiyaan inuu helo hurdo wanaagsan toddoba waxay fadhiisiyaan miisaanka jidhka waxaanay isku dheeli tiraan dhammaanba hormoonada jidhka waxaanad u isticmaali kartaa midhahan inaad ku darsato cabitaanada aad cabayso sida shaaha ama sharaabka ama faahfaahinta weydii meesha aad ka iibsanayso aad baa u mahadsantihiin